الشيخ لها نعاي يريد نلاشة كنعاي باباي شبعان قلت شبعانو وارتها إلهي يدبر حال دبي ما قرأ ينبأ محرمان الله ما لحق له كذا تدعى عاد كاتهاي وضع ما حصلت الشيخ إلهي كاتش سايس أنا أقول إلهي بان ويديست تتكع فيها لكن هذا يمكن كل شيء لو كشيء السير يركيسي بحاول ولا كاي وسيرك هاي دولة حدا يركوي ولي قام كهرش وما تري وحوالها حدا ومشاهد كيسها فوقيه وترى بدك هلا صديق الشلة الشباب تاعي هذا مدحوين ودك يعني كالدفاعي هو انت ودك يعني حمل كالدفاعي مدحوين مركز تشربني يعني كوضا نحمل من يتهرو iyo ninka la yiraahdo Yusuf Bakayle ee qaranimo iga sheekeynayaan maanta hada wali ma kadugay sidii loogu shirbeynay sidii loogu hadlayay madaxweyne isu soo dhaweyntii dadka iyo wada lahaansho meesha way ka baxeen sayidina maxamed ilaahay qolka wanaagsan ee saxa daacadnimada ilaahay anagu toosiyo anagu astro dhowr arrimood baan ka hadlayaa waxaan la hadlayaa taageerayaashayda xisbiga kulmiye waxaan la hadlayaa madaxweynaha gobolka Muuse Biixi waxaan la hadlayaa xisbiga wadani ee magac talada dalka la wareegay waxaan la hadlayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxaan ka hadlayaa wadaadada waxaan ka hadlayaa arrinka sool arrimo badan baan ka hadlayaa waxaan la hadlayaa xisbiyada mucaaradka waxaan ku horeysiinayaa xisbiga talada haya wadani xisbiga talada haya wadani waxaan leeyahay madaxweynaha xisbigooda ka yimi horta madaxweynuhu isagu inoo dhexo halkaas ka dhig waa madaxweynaheeni haddaba xisbiga wadani waxaan leeyahay xisbiga wadaniyow iyo taageerayaashiisow dalkasaa ku timaantee waa garanaysa waxaan leeyahay wax wejiya oo aad reebteen oo macaaridnimo laydinkaga daayaa ma jiro huwan soo raacde dagaalante buur fuushe xoog ku saarte qaylise sharcigii laydii jabi timaade madaxweyne keente haddaba anigu labaan u kala qaadaya say doonaa hawarka madaxweynaha iyo nimankii la socday waa kala laba isku muujada mayan anaa furaya madaxweyne Ciro wixii wadanka ka dhacay nimankaasi buuq wadeen lamuu qabin wuu hadlay wuxuu yiri wala aniga wixii reeraacaya ima matelaan madaxweyne marka dalkii qabsatay reerkii aynu islahayn kursiga ha ku qaboobeenaad ka soo jeed waa ka sii dareen waxaan islahayn waxaan oo huwan isu soo raaca waxaan oo waali waa kursiga marka yimaadeen bay ka dareen madaxweyne wixii dalka Muuse Biixi la colaha ee nabca eeriyay uga wadna waa cadowga waayo Soomaaliland bay cadow ahay cadow bay Soomaaliland ahay madaxweyne dalkii baad qabsatay waa lagu dhaari anigu markaasaan ogaaday inaan macaaridnimo jirin xaggayga waad madaxweynaha gatay ulaamshakayga halkii aan Muuse Biixi ka difaacayna aadii taagantii oo qaranimada kula ilaalinay wana ku sheeg madaxweynaha qaranka madaxweyne wadankii aan ka difaacayay huwanta wadankii aan xamar ka difaacayay madaxweyne marka Germany aan ka wada dhaxmul bayna yateero iyo ninka la yiraahdo Yusuf Bakayle ee qaranimo iga sheekeynayaan maanta hada wali ma kadugay sidii loogu shirbeynay sidii loogu hadlayay madaxweyne isu soo dhaweyntii dadka iyo wada lahaansho meesha way ka baxeen cid qalbigeeda lama dhayn marka kuwaas bay yimaadeen inay yimaadaan marka Muuse laga tagay aydiisa dalka xaraan ku tahay dalka ayaa xaraan ku tahay nimankii shalay Faysal Bootaan ku dul shirbeynayay nimankii shalay nagu dul qaylinayay nimankii shalay wixii lahaa waa kuwa
nama yoran haba soo noqdeen tooba Soomaaliland waan khaldan oo wada jecel ka waalan baba yiri Germany wal haay labada kala midba oran Soomaaliland waan wada jecel waan khaldan ma yoran ama laga yeelay daba laga daayay halkii bay ka wadaan baan u qabaan waana shaqeeya teerasho kula soo dhigtay oo xisbigaaga ah wadani ah ayuu ka mushahar badan yahay oo qaata madaxweyne marka warkaaga ugu horeeyay amaantaada Yuusuf Bakayla soo dhigo ee teera soo dhiga Germany soo dhigo maalin walba 400 baa ka tago taageere marka ku arkaan waan dhaxnaabo oo soo baxay shaqo laabanaya waanu yaabn wadambi madaxweyne qaran qoladii kulmiyana waxaan leeyahay war ma lahayaa ciidu ku dhaarata doonaysaa imika shacabtiisa dadkii waa laab waa fuulayeen mati waxa tiin xukuumadii wadada xaqashada ka daayay oo caayida ka daayay oo wadankan isu furmay adeer idinka isu dalooliyay adeer kala xidha ama hadhow baad ka shaqeyn doontaa fanaaniintii baan saxiraan oo yaabno isma muuse ku ahayn wad oo fanaan waliba isagoo bedelan ku imanaya markuu xaqato qaar baa waxay ka xanaaqeen oo soo dhigay anagu qaranimada oo ka shaqeynayna dalkii sidan si Maxamed taageerasho baan la hadlay waxaan leeyahay maanta dalkeenu waynu aragnaa halku marayo cadawgeeni aynu shalay difaacayna badna gudaha inoo soo galeen badna weerar baynu soo qaaday dalkeenu badbaado doonaya kala qaybsanaan ma rabo waxaan la hadlayaa qoladii aan la socday xisbigaygii bayaan oo qoladii abtiyaasha baan la hadlay waxaan leeyahay Soomaaliland baa haydeen qarannimo ahaydeen qarankeedii ka jeclaa inaga ilaashanaynay waxaan kula dardaarmayaa in leeyahay ama khalad war kama nacay boorko maanta dalkeenu meel laga qaybiyo oo ka qaybsanaado ma marayo wuxuu marayaa isku duubni in loo wada jeesto yeena ka ficil qaadan wixii shalay nagu dhacay teelo laynooma dhigan teelo laynooma dhigan walayna maagay walayna caayay Muuse mid loo harin laakiin inagu teera iyo Bakayla midna ma inaadahay yeelan lamayno waxaan leeyahay qaranka inaga leh cadawgeena halkan uu jooga hadduu inaga dubay waliba qoladii waalan burca qaylinaysa ka duumay wuxuu ka duubaya qolada Ilaahay barakeeyay dekada caalamku soo eeganayana leh gabilayna leh uma duba eeganayso inagu inaga dubayeen oo ilaaliyo wadanka nimankani marka waa ku nimankii aynu isla garanay labada reer ee waashay wala kaftamaya dalku saddex reer baa waalay imika anaguna qoladii aan la socon qoladaan isku tiriyay imika ka daba waalanaysa qoladii anaga natural baa ka tahay baa Allah waalida qoladii kale oo ka daba waalata oo tii meel walba inoo fuushay hadaa ka daba waalataan saddex reer oo waalan bay noqon wadanka waliba ku rognaa inagu aynu miyuru noqon oo cadawgeena meel uga soo wada jeesan idinka saasaadilaa madaxweyne cusub waxaan leeyahay qaar baaba malaawarki dooreen maslaxadeeda si kale runbaan waxaan ka aaminsanay sheegayaan madaxweyne qof wanaagsan oo daacada oo ummad dhan uu la socotay kamir qabaan ku arkaanu kaligi laakiin dad waalan hareerahayaan hayaay waa la cunayay ka riday kan ka qaaday kan riyaday madaxweyne waxa soo dhibaa ku haysta ilaahay horta ka soo furto dalka ilaahay ku gaasturaan habeen iyo maalmo ku ducay madaxweyne waxa laga doonaya cadaalad aad ku baaqday inaad dadka ku dhaqdo ilaahayna uu ku gaasturayaado gacantaada iyo calowlanaagaaga ilaahayna ugu badbaadinaya cidna inaad adigu ku xumayn oo cid qabyaaladaynay anaa ku dhaaranayo cid u jeedo laakiin madaxweyne wax badan baa socdaan ugu wax badan baa socda oo qayb iyo xukun ku jirto niman wada mashruuc doonaya waxa soo dhan ilaahay kula qabtay ka qaba dalka dadku sinaan iyo cadaalad inoogu dhaq waana kugu garab jiraa waana anagu mar qolo cadawga ku soo raaci mayno qarannimadana kula ilaalinayna
maanta laga bilaabo waa kula shaqaynaynaa horena waan igu kugu sheegay qaranimada kala shaqaynayna markaan saa leeyahay maaha ahayn anigu xisbi baan ahaa xisbi baan ka baxay anigu marka hore kulmiye kuma jiro wadanina maaha cidna maaha anigu waxaan ahaa nin haabuura oo kooxaysta laakiin taageer ahaa anigu muslimiin baan taageersanaa Muuse madaxweynihii waa dhacay aniga inaan qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland ka shaqeeyana waxay faraysa shaqadayda iyo muwaadinimadayda anigu qarannimo laygu imanayaa madaxweyne tala isku hayay dhexdeena wax ka xun baa socda dalkeenu waa la soo weeraray Soomaalidii aan shalayta ka qaylinayay laygu haystay ee moodaysan Muuse Bixi cadowga u ahaayeen Soomaaliland dhib cadow u ahaayeen waa taa imika waa kuwa ku haysta aynu xasan sheekh Khalid ka joog goorma sheegan lahayn in cadow xamar ka daran oo laygu haystay gudaha layga haystay maanta ma ogaateen cadow kale inaan lahayn soo xadiis ma maanta haddaba cadowgii Muuse haystay baa ku haysta meel in looga soo wada jeesto baa lagaga guuleysan karaa diyaar baan ku xulashada sanadka horena waa sanadkii hore dib u eegis bay rabtaa madaxweyne wadalaale cid waxa la yiraahdo ma qanacdo ma qodla in ganacsadayaal soo xudas iyana du abaal celinaysa waxaad u baahan tahay dadka caqliga lahaa dadka isku wadayay dadka ku keenayay haba waalata sanadka hore madaxweyne kuwana wax ka bad aad doorato inaga bad madaxweynaha goor jamhuuriyadda Soomaaliland baa la hadlaya Muuse Bixi Cabdi madaxweyne anigu run baan sheegaya halkii badii taagid madaxweynaha goor waxa tay geesi waxa tay libaax ana qiraya ninka waxa soo dhan iyo taliya dabadba laga haystay ee taacira haysta 10 laab mid ka daray haysato ay haysatay baad maanta halkaaga iyo meel ka xun baynu maraynaa dalkaada badbaadiyay haddaad fidmo u jeedo adigoo kursiga haystaad kaba dhaadhacdeen oo adiga halkaa ka maray wallaahi ilaahay aaminsanay baan qaar baan ka dhaadhicin weynay madaxweynihii wuu aqbalay doorashadii ma Muuse aqbalay bay kaga wada dhigtay oo adiga halkaa uga baxay haddana beertaadi baad ku ammaanlaadoo naga barxad ku fureen oo intaa lagu hadal hayaa lagu maagaya madaxweyne waxaa tahay 80 jir anigu Mandelaha Soomaaliland baan ku waqaanaa ama ha laygu caayo ama laygu maago intaa hadhay in la ficil tamaamo wanaagsana madaxweyne ninka la shaqe sidii laga yeelay hayeel wallahi weega niyad aakhiradaada ay wacanta inta jirta in leegu noolaan cimrigaaga khayr darro ku soo watiin ilaahay dambigaaga hor ha dhaafee maanta dalkaagu badbaadu doonaya waxaad ka badbaadinaysaa kuwii ku soo weeraray oo inagu soo weerar nagu soo socda waxaad ka badbaadinaysaa waxa la wixii tuukaatay iyo wixii wabin inaga tigi munaafiq inaga tigi cirri la jooga kuwii baa u baahan cid ka badbaadisa kuwii ku caayay baa cid ka badbaadisa xitaa wax kala daayay u baahan madaxweyne ninka ha qiyaanayn daacad kula shaqee taadi ha eegin ilaahay baa dambigaaga ku dhaafay markaad samirto Muuse Bixi Cabdi saasan faraya aniga sharaf baad iga mudan tahay shalay baan ku heesayay imikan ku wata aniga Mandelaadit laakiin waxaan ku sheegayaa maanta meel laga ficil tama ma joogo dalku madaxweyne ninkaas shaqo u baahan yahay la shaqo waxaan la hadlayaa oo kale culimada nimanka culimada ay ganacsatada baan la hadlay sheekh ilaha nacay ee yiri dad nolosha ka dhacay ee baabaay Shabcaan horta Shabcaanow waa ruta ilaahay dambi dhaaf xaal dambi baan galay ina baan muxrimaan oo hayn baan madaxa ka dhukada haday daacad ka tahay wad mahadsantahay sheekh ilaahay ka jisayso anigu ilaahay baan weydiistay dadka cafiya laakiin adiga mid baan ku sheegaya dhukashada si aad u arkaysay waxaad walaalkaaga wasiirka hay dunida xaday u arki weey weliga ma ka hadashay uma tiri waxba la xada
ومشاهد كيسان فوق يوتشري midda kale soo diga shalay al-shabaab tahay adigu ee lagu yariyo lagu xula adigu cid la baabiyo iyo ciil qabkaaga aad lahayd in guri lagu gubay heedo lagu xilo saasa ka sala anigu adiga waxba kugu sii dheeramay waxa kooran maayo waxa ku leeyahay wixii aad nagu sheegtay inaan ahayn ilaahay baanu maragashan ilaahu waxa uu nagu sheegay in nolosha ka dhacay ee sakhraamiinta ee aan nolosha macna ku lahayn ilaahu manihi wadoogti haddaad kaligaa jannadii iskiisay adigu oo soo qaadatay in lagu soo waxyoodo adigu kaligaa janno ku jirto oo kaligaa cibaadaysato annaga ilaahayaga waxaanu nahay ciidan loo markhaato furo oramayno nagamana cibaado badid waxaan ku leeyahay fanaaniintu ama waalo ama miyir qab ama sheekh sheego ama ha sheegan qodob distoora ayay ku haysaa waa distooriyan fanaaniinta shaqadooda adiga halkaasaan kaaga tegi cabdiraxmaan dheere waxaan ku wuri saaxiibkay inagu kulmiyeen isku ahayn sheekhii baad ahayd kulmiyaadna anna abwaankii kulmiyaan ahaa ee musabix adiga cali marxaan la shaqaynayaadba maxaa nuur ku keenay wad weydiinaysa dawladdu ba isbedelay walaba nin oo inaad dadkii hore la shaqaynaysay anna aad nagu dhex aragta midda kale markaan muuse heesaa sameeyay maxay heesu dambi noqon waayay soo nagi malihin cadow xamar ka daranaya aad ugu taageersaneen midda kale aad u ixtisaan tad gashay qolada kala lahaydee salafiintu qolada nabadda ka shaqeysa ee madaxweyne kasta taageersan ee inaan qolada intaas aniga ba salafiyadii anu intaasan ku isocday soo digan bayray bas siyaasadda ku duday oo cabdiraxmaan oo ilaahay baa inoo gar qaadaya anigu wadanka baloogna kalaba tigi baloogna maan qaadan baloog guud dabiicii dalka ka qaatana waa la garanaya ee kala baxdo nin waliba diintu ha qabato maalinta qiyaamahana sheekh iyo shariif ilaahay qof walba hor istaagayo oo ninna laga dhaafay oo nin walba wax la weydiinayo ogaada ragga jannada iskeeyo fankuna waa distoori dalka u baahan madaxweynaha markuu baxayo loo heestaa markuu soo degayna lagu soo dhaweeyaa qaranka u baahan oo anagu distoorka baan gelin wacyi gelinteenu ka wada shaqeynaa haddii diintu daacad ka tahay weligeedii ma khamriidi ko ka hadlay maxaa heesaa idin daba dhigay dadkaynu isku haysanaa Soomaali shacabka dhagahooda heesaa quraanka bal gubay sheegina wala isku hayaa khamrigii ilaahay ku sheegay wal maystarkii maxaa uga hadli weyday sinadii maxaa uga hadli weyday khaati bilaahi baan ku joogna labada sano la dagaalanaa anagoo fan ka shaqeynayna miyaa nagala shaqeyseen fanaaniintana gaalada ku sheegaysana ma walba suuqa musuqmaasuqa ka sheegaysaan war kale waaniya dasalaada u fara heestiisa halka dhiga fanaanka waxa tahan kale ilaahay tuko ila waa shahaadanaya heestaa waxa ka horeysa salaada nibaydaan salaad kala hadlay baa shaqadaadi ka tag anagu waan kala hadalay waxaan ku nahay ilaahay codka idin siiyay fanaanka idin ka dhigay sharafta idin yeelay kale u tukada ilaahay baan ina xisaabinay keenna sax fanaaniintana hadda rateen qaar xun daweyn funa waan ugu jira idinka ba 9 kun oo wadaad bay ku jiro dadka qarxiyay oo xun taqaal weesan waan la ilaahay ka baqa waxaan leenahay shaqo kala qabsan shaqo adan wasaaradda diinta iyo qaafta ku xukunta khudbadaha gamide anigana waxa xukunta warfaafinta maxay ka keenay kala store baynu kala wasaaradda sheekh Sokaye oo fanka nacabo saaxiib aan lahayn qadar wada joogday waana sheekh ba ku ogeeno sayidida ka shaqeey jiray ba caalina saaxiib waxaan ku leeyahay in aqoon labaad diinta ka shaqeeyay shalayna waxa la dalku baabiya markii Muuse saaraa xarugmadu afkaagan ka iyo khudadaha ha lagu kaco war diinta ku tiri madaxweyne baabiya iyo dal jira baabiya wakay ma maanta noo sheegaysa wax kale anaga nooga hadlasay adigu wanaag iyo khayr minda ka hadla ka bax fanaan laga dhageysan maayo shalay baad Muuse mujib ku sheegaysay haddana kuna cisa mujibna ka war inaan jawaabtaada hayn faraha ka qaado waxan ninka waa inta khudbada soo galay reerihii uu diinta uga sheekayn lahaa kaayaga baan waasanay ku inaasta meel isku diraysa mise waxa laga jiris culimada waxaan leeyahay jimci dhawaa meed baa 12 oo yaala kama hado reerku meed ducay meed tagin sheekh Cabdiraxmaan kulmiyaabo sheekh weynaa dalku nin ilaahay weydiinayo buu maalinta oo laga hadlayo
حويتو علماء كحيستوش قلت جوا عيسى موسى هو رواي والما هي ميت حرب نقول إلا ميت كانوا نولي ينقوا من رجلته برف بالجري قف فيها يرتقي وضم غلاية ما وحكي حماش تتها أنتوا هسك هذي يكين باطن ما دو تكتير ترى وراست أنا قاله أورنا إنه خيرك ميت كوي له وحلاها إلهي درت واسط إلهي لو يدين سو دوينيا وحي دلي هدي الدولة أود أي كو سو قبته ويدي سمر ميدك حقوقdiisa naga siiya waxaan isla dawladda oranaysa annaga saaranay dusha meedka maanu maqal hadana hoos waran inta way garan weydaya meedka Ilaahay dartiisa waas annaga idin hadii culimadii dawladda weyday taana culimadii baan ka hadlayaa waxaan idin sheegayaa culimada taa waxaan ugu noqonayaa wariye tiktokera abwaan tiktokera فنان تيكتوكرا شيخ تيكتوكرا او كاميرا استبسده بل maxaad noo fadeexadinaysa haddaan inaan madaxa ka dhunkanay agaasimihii madaxtooyada ayaa ku dhaca rabaab oo na sheego namaag nabigu calayhi salaatu wasalaam weligii qofka xukuma caddayn dambi galay si kale uu la hadlay ummadda Ilaahay baa nagu soo jeedsamay Ilaahay ku weydiinay ta kale فرعون ما عيد كحن باجتي فرعون با إلهي كوري نبي موسى ومركا دو تجسس سقبه ولا هذا حتى وكيل أهل ما شكت من أهل ما شكنا ما هسنا حتى قو عاي ما ضغط بقولي وضع قرنا يسايو فنانين بانه مياد يقولي عرب نك يقولنا يا شيخ يقولنا يقولي فنانين بانه وواني وهبلا ينا ما نقول تجي وعب سناين إلهي ويدين إياه معك خريطة كهالله هذا ما ديتي ولي من نوتي ماته من صبغته إلا فرعون وإلهي شقدي سوق قبصدي بقى إلهي يرسو عن الله هذا أنا وأدومي إلهي بأنه شهادة يتوكل إياه إلهي بريه بدك كلام من نبى سنيه نبي بوحي شيخ يا شريف نين اللي قبل وحي بتشي صنع نبي أنا ويا صلى الله عليه وسلم نبي قاعد صلى معي ولا ما كان هكذا سنقول أفيا منير روح الله كحلقة هشيسك إلهي بقى قرآن كيسة نقول شقيدة كلمة هشيسي وقضب دين تكوي المثال حالا لقى شغي حتى استريه هشيسي دادك وتكون محسنت أنا أقول له إلهي أنا كاتشسي هذا يسوق هاي جي إن أنت خالد كله أنا قلنا لوجت تري فيسبوك ودك يسوق بدري تاها يعني للباهن تنعيب وضع وحول نكسبت كشخص أنا أقول واحد مش يدمر مش شاقي إلهي كاتش سايسي أنا أقول له قولي أنا للسعودية حقنا كل مية أنا كيو السواق اللي جاي صور بيانه فوتوشوب أرتبه إن فنان هذا ينام خلي منيرة ولا بدنا هالشيء ده هي وديك عربتي على ذي كوم بدي كيد للسعودية إن اللي بفنان يعني جالس سكحي سواق نكتام هيبقى بالجودين يديكونا وولو فوتوشوب